Haddii aad isdhiibtid waad dhimanaysaa. Beri baryaha ka mid ah waxaa jiri jiray laba rah oo aad iyo aad isu jeclaa, ahaana saaxiibo aan dhexdooda la geli jirin. Hadday doonayaan inay cunto doontaan way israaci jireen. Hadday doonayaan inay meel ka guuraan way israaci jireen. Hadday doonayaan inay soo ciyaaraan ama meel fog u dalxiis tagaan way israaci jireen. Waxay ahaayeen laba rah oo aan dhexdooda la geli jirin. Waxay ahaayeen laba saaxiib oo aan dhexdooda la geli jirin. Kadib maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in iyagoo geed saaran ay arkaan jeeg uu ka tegay nin beeroolo ahi. Labadoodiiba jeegii ayay gudaha u galeen, waanay ogaadeen in waxa ku jira ay caana yihiin. Laakiin nasiib darro, jeegu aad iyo aad ayuu u yaraa, caanuhuna way ka buuxeen. Kadib deetana labadii rahba intay isu eegeen ayaa midkii kale ku yidhi, saaxiib maanta waynu dhimanaynaa, ma samayn doono, waynu quusaynaa qura, markaa iska daa dabaashan oo isdhiib. Laakiin rahii kale wuxuu ku yidhi, saaxiib miyaad ahayn kii markasta dhiirigelin jiray? Saaxiib miyaanad ahayn kii markasta ii sheegi jiray waxyaabaha wanaagsan ee igu odhan jiray la isma dhiibo weligaa? Saaxiibkii kale wuxuu ku yidhi, saaxiib maanta tani way ka adag tahay tii aan kuu sheegi jiray. Maanta waxaynu ku jirnaa badweyn, maanta waxaynu dhexda kaga jirnaa meel aan cidina inaga saari karaynin. Kadib rahii uu isdhiibay, laakiin rihii kale ismuu dhiibin. Aad iyo aad ayuu u dabaashay, isagoo ka murugaysan dhimashada saaxiibkii iyo geerida ku timid iyo weliba siduu isu dhiibay. Kadib markuu dabaashay ee ay gaadhay habeen, ayuu arkay in caanihii uu ilaa maanta dhan ku dabaalanayay ay isu beddeleen subag. Kadib intuu subagii ku istaagay ayuu ka booday jeegii. Jeer ayaynu isdhiibnaa inagoo aan ogeyn waxa dib ka iman doona. Imise jeer ayaynu isdhiibnaa inagoo aan ogeyn waxa inoo qoran. Imise jeer ayaynu isdhiibnaa inagoo aan ogeyn macaanka inoo dambeeya. Weligaa nolosha ha isdhiibin intaad nooshahay.